farxad weyn bay tahay inaan maanta idinkala qayb galo xafladan kooban ee lagu dhaarinayo labada gudoomiye ee maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir iyo maxkamadda gobolka Banaadir. marka koowaad waxaan idinku hambalyeeynaa xilalkaasi oo idin magacaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kadib soo jeedintii gudoomiyaha maxkamadda sare inagoo madaxweynahana ku hambalyeynayna uga mahadnaqayna garashada uu gartay in garsoorka ay hogaamiyaan rag dhalinyaro ah oo aqoon-yahan ah oo lagu tuhmayo hufnaan alla ka cabsi iyo daacadnimo intaba. mar labaad waxaan idinku ducaynayaa hawshaasi iyo mas'uuliyadda culus ee aad qaadeen in Ilaahay idin fududeeyo. waxa aad qaadeen aad maanta u dhaarateen waxa weeye waa ammaano. ammaanaduna culayskeeda ayay leedahay. cirka iyo dhulka iyo buuraha ayaa diiday inay qaadaan. kadibna waxa aqbalay aadamaha. iyo sidaas culayskeeda u leh ayaa arintaydu kuma aanta aad qaadeen sida gaarka u qaadeen annaguna hore waan u soo haynay. ay ammaanooyinka kale oo dhan ka culays badan tahay. oo ay ka dhib badan tahay. waayo waxa tahay qofka kaliyaata ee saxiixiisa qof nafta looga qaadi karo. waxa tahay qofka kaliyaata ee saxiixiisa qof xorriyadiisa looga qaadi karo xabsiga loo geyn karo. waxa tahay qofka kaliyaata ee qofna xiri kara qofna siideyn kara qofna dil ku xukumi kara. mas'uuliyadda inta leg ayaa idin saaran. waxa idin dheer markaa awoodda noocaasa ama amaanada inta leg waxay saaran tahay qof kasta oo garsoora. waxa idinka intaas idin dheer waxaad hagaysaan oo aad maamuleysaan dhammaan garsoorayaasha shaqada qabanaya maxkamadaha aad joogtaan. marka waxa idin dheer mas'uuliyad maamul ayaa haddana idin dheer. marka mas'uuliyadda runtii maanta aad qaadeen waxa weeye mas'uuliyad aad iyo aad u ballaaran. garsoorayaashan sida xadiiskii nabiga lagu hayo calayhi salaatu wasalaam saddex qaybood bay noqoni. mid kaliya taa jannada tag. labada kalena waxa weeye waxa loo ballan qaaday inay naarta tagaan. ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inaynu noqono midka jannada tagaya. laakiin innaga ayay inagu xidhan tahay jidka aynu qaadayna. haddii aynu noqono garsoorayaal iyo gudoomiyayaal cadaaliyiina shaqada ay hayaan alla uga cabsada siyaasadii aanay saamayn dhaqaale aanu saamayn qabyaaladi aanay saamayn saaxiibtinimo aanay saamayn wax kasta u eega sida ay sheegaysa dhaarta aynu aad hadda ku dhaarateen ee ah inaad shaqadiina u gudanaysaan sida si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka isla markaana ay ku jirto danta cadaaladda oo kaliya. taa haddii aad u gudataan oo aad dhaartaa rumaysaan idinkoo Ilaahay tala saaranaya waxa hubaal ah markaa inaad maraysaan jidka fiican ee idinku aroorin kara ama inagu aroorin kara jannada Ilaahay taas hay naga yeelay. caqabaduhu waa badan yihiin. waxaynu joognaa dal burbur ku dhacay dhibaatooyin badan ka dhaceen dulmigu iska caadi noqday dhiiga qofka in la daadiyaa uu caadi noqday hantida iyo maxaan ku dhaca ay umadu leedahay in la kala dhacay caadi noqotay. marxaati beenaaluhu aanu micno badan lahayn. dal noocaas aynu joognaa. dal waxaynu joognaa laga yaabo qofku inuu kitaab gacanta saaro been soo ku dhaaranaya marmaragna ku furaya. dal waxaynu joognaa dokumentiyadii dawladdu lahayd ama burbureen ama la xaday ama shacab gacanta u galeen. dal waxaynu joognaa ay adag tahay in dadka aad u garsoorayso aad sugto cadaymaha iyo cidda xaqa leh. marka taasina waxay ku faraysaa dadaal ka ballaaran intii laga filayay garsoorayaasha dalalka caadiga ah jooga in la bixiyo dadaal ka badan in la bixiyo. marka Ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inuu hawshaas inoo fududeeyo. waxa iyaduna laga maarmaana oo lagaga bixi karaa hawshaas wada shaqaynta iyo gacmo isqabsiga. galaduba waxay saaran tahay wax isu geeyeen. haddii gacmaha la isqabsado oo koox ahaan loo shaqeeyo oo hal hadaf iyo hal aragti ah la yeesho
oo ah in ummadani ay cadaalad hesho waxa hubaal ah xaqiiq ah in la guuleysanayo haddii laakiin la kala tafaraaruqo oo la wada shaqayn waayo oo qof walba gaarkiisa u cararo waxa xaqiiq ah in fashil lagu dambaynayo waayo gacmuhu wada jir ayay wax ku gooyaan wada jir bay wax ku qabtaan marka ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa in mas'uuliyadaasi adag iyo xilalkaasi culus aynu ummadda Soomaaliyeed u qaadnay inaynu ka soo baxno inaynu qayb ka noqono dib u soo kabashada iyo dib u soo noqoshada iyo dib u soo nooleynta rajadii ummadda Soomaaliyeed inay ummadda Soomaaliyeed rajada ay naga qabto inaynu rumayno ayaynu ilaahay ka rajaynaynaa